السلام الله عليكم ورحمة الله ميل كستو أدجوتان ومركلة إيو برنامج كيني كسبو أو أنا ألابا كسو قادنو بوغا ليرادو صاحب كسبو كاسي أو ديرادة ساريا أما حوغا بساريا فانكا لا dhaqanka dadka بوغان هيا وحا قري ديلا كرنيج وحانا ترجمي قرين عبد الرحمن حسين اللو يقانو أبو حمزة هذا كسو دوادا قيبتا ساقالات بوغا صاحب كسبو غارهان برنامج كيسا كسبو haddaba waxaanu maanta diiradda ku saaraynaa oo dhowr qaybood uu noqon doona ciwaanka ah 6 dariiqo oo dadku kugu jeclaado qaybta koowaad haddaba samee sidan waxa laga soo dhaweyn doonaa meel allaala iyo meeshii aad tagtidba kugu habboonaan lahayda inaad kitaabkani akhrin lahayd inaad ka barato fanka kasbida saaxiibtinimada midka adduunko dhan ugu kasbi og saaxiibtinimada ma taqaanaa waxaa suurowda inaad la kulanto birito adigoo jidka gudbaya haddii aad u soo dhawaato dabaduu kuu soo lulaya isagoo faraxsan haddaad garabka u salaaxdo wuxuu ku dhawaanayaa inuu farax la duulo si uu kuugu muujiyo farxadiisa ujeedo gaar ah ama wuxuu kaaga sasabanayo jaceylkaasina ma jiro ma doonayo inuu kaa gado alaab mana rabo inuu gabadhiisa uu kuu guuriyo kaasi oo aan soo tilmaanay waa eyga ma u fiirsatay inuu yahay eygu xayawaanka keli ah in wax hawl ah qaban si uu hunguri u helo maxaa yeelay digaaga waxa laga helaa ukun lo'da waxa laga helaa caano shimbirtana waxa laga helaa heeso macaan eyguse ma yaqaano waxaan jacayl ahayn wuxuu yiri qoraagu markii aan 5 jirka ahaa ayuu aabahay ii soo gaday ey yar oo qurxoon oo dhogor dahabko kala leh waxaana ku baraari jiray waqtiga aan dugsiga ka soo noqdo wuxuu hor fariisan jiray gurigayga isagoo u jeedinaya indhihiisa jidka aan ku imaanayo markuu shanqartayda maqlo ama meel fog iga arko ama uu arko dambiisha aan cuntada ku qaato orod buu isu soo taagi jiray isagoo dabaysha la tartamaya si uu ii soo dhaweeyo isagoo farxad la barbaaraya eygaasi oo la oran jiray Tibi wuxuu saaxiibkay ahaa sano markaas habeen baas oo aanan marnaba ilaabaynin lagu dilay meel u jirta 10 talaabo waxaana dilay danab ama gugac dhimashadiisina waxay ugu noqotay boog carruurnimadeedii isaamaysay Tibi ma akhrisan cilmi umana baahnayn aqoonta Ilaahay ku abuuray ayuu ku gaaray in qofku uu kasbi karo muddo 2 bilood ah xagga tixgelinta dadka in ka badan intii uu kasbi lahaa 2 sano haddii uu ku xambaar lahaa dadka inay isaga tixgeliyaan shirkadda telefoonada ee New York waxay samaysay tirakoob ay u heshay erayada dadku ugu isticmaal badan yihiin wada hadallada telefoonada haddaba ma garan kartaa waa magacyaalka hadlaya oo ah aniga waxaa lagu hadlay ereyga 3990 jeer in 5000 oo wada hadal ah haddii shaki kugu jiro ka jawaab su'aashani haddii lagu hordhigo sawiro dhowr qof ah oo aad ku dhex jirto keebaad ugu horfiirin lahayd marka maxay dadku kugu tixgelinayaan haddii aadan adigu tixgelin marka hore sideed u damcaysaa inaad aragga dadka soo jiidato adigoon araggaaga u jeedin marka hore Napoleon wuxuu ku dhacay gef ilaa uu ku yiri Josephine
is-aragoodii ugu dambeeyey waxaan gaaray magac iyo boqornimo aanu qof kale gaarin. haddana ma haysto qof kale oo saaxiib ah oo aan isku halleyn karo oon adiga ahayn. culimada taariikhdu waxay qabaan xitaa iyadu inaanu isku halleyn karin. wuxuu qoray Alfred Adler, aqoon-yahan cilmi nafsiga ah oo caan ah una dhashay Namsa ama Austria, kitaab la yiraahdo Waxaa habboon inay noloshu ku faa'iideyso. waxaanu ku sheegay hadalkan qofkii aan dadka tixgelin wuxuu mutaystaa inuu dhibaatooyin badan kala kulmo nolosha, waxaana ka muuqanaya ayaan daro fara badan. markaan ku baranayay fanka sheekooyinka gaagaaban magaalada New York, waxaa khudbad noo akhriyay qoraaga wargeyska Colorida. waxaanu yiri, waxaan hadiiba garan karaa in ninka qoray dadka jeclaa iyo in kale. wuxuu ku daray, haddii qoraagu aanu jeclayn dadka, iyaguna ma jeclaadaan sheekooyinkiisa. galab baan soo booqday qolka riwaayadaha lagu tijaabiyo oo uu leeyahay Howard Thorson oo ah boqorka sixirada iyo indhasarcaadka, kaasi oo 40 sano wareegayay adduunka. dadku ku jahwareerinayay sixiradiisa iyo indhasarcaadkiisa la yaab kale. xafladihiisa waxaa daawaday muddadaasi in ka badan 60 milyan oo qof. wuxuu ka qabtay lacag gaaraysa $2 milyuun oo dollarka Mareykanka ah. waxaan ka codsaday Thorson in uu ii sheego sirta la yaab kale ee uu ku sameeyo dadka daawanaya. wuxuu yiri, sixroolayaal badan waxay u fiiriyaan dadka daawanaya sidii koox dabaalo ah oo aan waxba garanayn, laakiin aniga fiiradaydu dadka i daawada waa ay ka gedisan tahay midaasi. markasta oo aan dadka hor istaago waxaan iraahdaa, badanaa intaan dadkan mahad u hayo. dadka doorbiday inay u yimaadaan aragayga waxay ii suuragelinayaan inaan hungurigayga u shaqaysto si iraali gelisa. waxaan u dadaali doonaa intii kartidayda ah si aan markayga u raali geliyo. waxay sheegtay Marwe Shoomaan Hing, fanaanada caanka ah. sida uu ii sheegay Truston, waxay ka gaartay xagga iyo dhawaanshaha dadka heer aad u sareeya. xitaa ay fikirtay maalin inay disho nafteeda iyo ilmaheeda. inkastoo ay sidaa ahayd, way waday heesihii ilaa ay ka mid noqoto heesayaasha adduunka ugu caansan. waxay kartay inay qalbiyada dadka kiciso iyo dareenkooda ku dheehdo shucuur iyo xamaasad. waxay ii cadaysay, ayuu yiri qoraagu, in sirta liibaanteedu ka koobnayd jaceylkeeda dareenka leh oo ay dadka u qabtay. waxaa la mid ahaa sirtii caanimada ahayd ee u faaftay Roosevelt, kaasoo qalbiyada dadku u kulantay jaceylkiisa. xitaa shaqaalihiisa waxaa dhacday inuu maalin soo booqday guriga cad kadib markii uu ka degay madaxtinimadii waagii uu madaxa ahaa Tavet. isagoo ka maqan guriga cad, markaasuu la sheekaystay shaqaalihii isagoo ugu yeeray magacyadoodii lana kaftamaya. waxaa ka sheekeeyay booqashadaasi wiilkiisa oo yiri, markuu arkay aabbahay Ellis cunto karisada guriga cad, wuxuu weydiiyey inay weli samayso sabaayadii macaaneyd. waxay tiri, marmar baan u sameeyaa shaqaalaha, laakiin mudanayaasha guriga cad ma cunaan. markaasuu ka xumaaday aabbahay isagoo leh, taasi waxay ku tusinaysaa dooq xun. waxaanse u sheegi doonaa madaxweyne Tavet. markaan arko, waxay keentay Ellis cad ka mid ah sabaayadii wuu qaatay. markaasuu u baxay xafiiska madaxweynaha isagoo calaashanaya. weli shaqaalaha guriga cad way ka sheekeeyaan maalintaasi ilaa iyo hadda. weliba wuxuu igu yiri, Eat Hover oo ka shaqeeya beerta guriga cad, isagoo indhihiisa ilmo ka socota, maalintaasi waxay ahayd maalintan ugu saacado badnaa muddo 2 sano ah. qof naga mid ahna ma ogolaadeen inuu ku beddesho xusuusta maalintaasi $100. sidoo kale, jacaylka dadka iyo daryeelka dhibaatooyinkooda ayaa sabab u ahaa sirta liibaanta. bal qaybtan 9aad halkaan haynoo joogto. waxaad sugtaanba waa qaybta 10aad oo aan ku soo qaadanayno qaybta 2.
oo ah 6 dariiqo oo dadka kugu jeclaado waxaad sugtaanba waa qaybta 10aad waa Maxamed Cali Juxaa oo idinkaga tagaya salaamullaahi calaykum